أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا صعبت ولا سلام يا سومالي سموذي يوتيوب channel انتينا كحلن رمضان كريم. هذا مركز توجهتان دنيا ونقد ورسان ما أنت وحن إن شاء الله إنه قال الله رمضان تاي أهمية ديدا halkan waan iska fadhiyaa marka waa iska yar cadaadsanayaa marka waxaan ku hadlaynaa rabadaanta iyo ahmiyaddeeda. Rabadaanta in maaragtay waxay u baahan tahay in waxyaabaha xun oo dhan laga somo, aragtida, hadalka xun, maxay ahaday gacmaha xun waxa lagu qabanayo, lugaha xun waxa loogu soconayo, dhagaha xun waxa lagu maqlayo, aragtida wadaraysa xun waxa lagu arkayo, waxyaabahaas oo dhan. marka waxaan leenahay insha Allah in waxyaabahaas oo dhan maaragtay aad iska ilaalisaan khayrka maaragtay khayrkuna maaragtay khayrkiina ay ilaashataan iyo maaragtay maxay ahaday aakhiradiina iyo maaragtay iyo soontiinaba ina intaaba ilaalisaan. dadku waxay ku oranayaan inta ugu badan afkun bay ka soomaan, laakiin soonku maaha kaliya taa maaragtay cuntada laga soomo. soomku waxa weeye in waxyaabo badan laga soomo, aragtiyo badan laga soomo. soomku wuxuu noqonayaa nabigana wuxuu leeyahay calayhi salaam walow kaana kelmad ha noqoto maxay ahaday gaarsiintaad ka taqaano dadka maaragtay maxay ahaday diinta waxaana idin soo gudbinayaa intaan ka aqaano maxay ahaday marka waxay ahmiyaddu tahay in maaragtay qofku ka soomo aragtida, qofku inuu aragtida ka soomayo, qofku inuu maaragtay maxay ahaday gacmaha ka soomayo waxyaabo xun lagu qabanayo, afka inuu ka soomayo. adigu lixdaas siyaabood waa inuu qofka maaragtay ka soomaa. marka oo farjigu ku jiro, maxay ahaday luguhu ku jiraan, gacmuhu ku jiraan, afku ku jiro, indhuhu ku jiraan, dhaguhu ku jiraan. marka waxa weeye qofku inuu maaragtay intaas oo dhan ka soomo ayaa maaragtay bisha Ramadaan looga baahan yahay. waxyaabaha xun maaragtay waxyaabaha xun social media oo kala waxyaabaha wax meel la daawanayo waxyaabahas oo dhan inuu qof ka soomo. intaad maaragtay social media isticmaalayso dadka ugu wanaagsan inta ugu badan social media ma isticmaalaan, laakiin ama channelada wanaagsan asilada khayrka ka soo burqamaya maaragtay ama dadka waxyaabo wanaag bay ay maaragtay dadkaas oo kale ay maaragtay daawato. haddaad maaragtay social media isticmaasho maalin walba waxaa laga yaabaa inaad maaragtay ciwaan beena aragto dabeedna aad ku dhufato. ciwaanka beenta markaad ku dhufato kabacdina wax kala noqdo. marka maalin walba intaad maaragtay astaghfirullah haysaad maaragtay mar walba aad maaragtay ku dhufanaysa aad maaragtay ka toobadkeenayso waxa aad daawatay way badan tahay. laakiin muhiimaddu waxay tahay dadka inta ugu badan inay iska ilaaliyaan waxyaabaha fawaaxishka ah, waxyaabaha maaragtay dembiga kaga imanayo. xayada nabiga calayhi salaam wuxuu yiri ama khayr ku hadal ama iska aamus. marka haddii dadka maaragtay ay khayrka ku hadlaynin maaragtay maxay ahayd daldalmaya qabiilada ku daldalmaya waxyaabahaas oo dhan ku daldalmaya waxyaabaha xun ama qof saaran ama dumarkeena caayaya iyo hooyooyinkeena sharafta leh iyo dadkeena maaragtay wanaagsan ilaa maaragtay dadkaas oo kale maaragtay iska xidhaan barnaamijyadooda waa iska ilaalisaan. maxay ahayd waayo waxay ka mid yihiin aragtida maaragtay iyo maaragtay maxay ahayd aragtida xun bay ka mid yihiin iyo waxyaabaha xun daawanaysaan indhaha ka daawanaysaan iyo maqalka maqlaysaan dhageysanaysaan. marka dadku inta ugu badan dad baa jira waxaa daawada oo ku raaxaysta, laakiin waxaan leenahay insha Allah inaad maaragtay iska ilaalisaan dhammaantiin, inaad sii share gareysaan fiidiyowgana intaana maaragtay gaarsiin karayno aan maaragtay u sheegayno inay dadku iska ilaaliyaan. waxaa sii dheertaa maalin kaste waxaa jira dad baa jira maaragtay hadallada iyo waxyaabaha maaragtay xun ku raadsada inay maaragtay views ku helaan oo maaragtay inay maaragtay dadka ugu maaragtay waxyaabaha dadka kusoo jiidanaya oo camal shaydaan oo kale inay sameeyaan. marka waxyaabaha camal shaydaanka marka haddii qofku maaragtay ku khasaarayo maalkiisii maxay aragtida oo indhaha ah maaragtay in lagala xisaabtami doono maalinta iyo qiyaamo la weydiin doono. sababtay tahay waxaanu ka hadlaynaa example video baa la soo dhigay
ka sheekeynaya xumaan ka sheekeynaya ama wax ka sheekeynaya inaad daawataa waxay ka mid tahay inaad maalkaaga ku bixisay sababtoy tahay maalin walba megibaadka iyo maaragtay internetka aad isticmaalaysa lacag baad ka bixisaa internetka qofku hadduu maaragtay uu ku soo shahaysto oo kalaa waxaa laga yaabaa wuxuu ku shubanayaa hadduu video ka daawado in markaa ka dhamaado sababtay tahay waxa kaliya taad ku daawanaysaa waa lacagtaadii aad ku bixisay internet kaste aad lacag ku bixiso waxaad ku daawanaysaa megibaadkaas aad ku daawanaysaa intaad daawatay ayaa weeyaha qofka la siinayaa lacag baad ku daawanaysaa marka walaalahay lacagtaa ku daawanaysaan inaa wax khayr ah ku daawataan baa idin qurux badan inaa wax maaragtay maxaa maaragtay idinkana idinfacaya akhiradiina idinfacaya inaa ku daawataan waniga maaragtay rashiid oo idinla socodsiinaya in yar inta waqtigayga aan maaragtay chance ka hayo aan maaragtay idinka faa'iideynayay waxaan idin leenahay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo ammaano allah assalaamu calaykum